asxaabta projectkan kale oo leedahay maanta wuxuu ku saabsan yahay light switch markii tusaale ahaan make a LED switch on when it becomes dark. macnaheedu waxay tahay markii ledkan wuxuu shidmi doonaa markii uu LDR-kan uu dareemo mugdi. projectkan wuxuu ku saabsan yahay leerarka automatic isku shida markii qoraxdu dhacdo ama leerar kale maqan yihiin ama ay mugdi tahay ereada. waa kana ayadoo si English ahaan ah si fiican looga hadlay. waxyaabaa loo baahan yahay 9 voltage battery and 100 ohm resistor and 2 times 1k ohm resistor and black, yellow, gold waa coloradiisa iska dhaafta ma lahan, and 2 times 10k ohm resistor, 100k ohm resistor iyo 2 times BC547 transistor, 10 microfarad electrolytic capacitor, hal LDR iyo hal red led iyo 2 wire oo jumper wire fiilooyinka aan isugu talaali doono. waxyaabaha nagu cusub waxaa ka mid ah LDR. LDR waxaa loo soo gaabiyey light dependent resistor. waa resistor isbedelaya markii iftiinkiisu uu isbedelo, macnaha iftiinka uu arkaa iftiinka ama qoraxda ayuu isku bedelaa. tusaale ahaan markii mugdiga tahay LDR-kan kana hadda isticmaali doono waa 10k ohm resistor, 10 kilo ohm waayo macnaha resistorkiisa. markii iftiin lagu ifiyo aad ayuu u yaraanayaa resistorkiisa, boqolaal ayuu gaarayaa. marka sidaas darteed waa resistor ku salaysan iftiinka. haddii iftiinka isbedelo asagana wuu isbedelayaa resistorkiisa. sida u shaqeyn doonto transistorkan iyo qaabka isugu xiran yihiin haddii aan hal mar kor u sharaxo, ingiriis ahaan waa akhrisan doontaa, boos saaro videoga kadibna ingiriis ahaan haddii aad luuqada ingiriiska ku fududahay ama ku sahlan tahay waad akhrin kartaa qoraalkan oo dhan. waa aad si aad ah ayuu u sharaxayaa qaybaha ingiriis ahaan. haddii aad rabto Soomaali ahaanna halkan ayaan kugu sharixi doonaa qaabka uu u shaqeeyo markii aysan iftiin jirin oo ay mugdi tahay. waxaa dhici doonta transistorkan 10k ohm resistor korontada dhex mari doonta ayaa yaraan doonta, maxaa yeelay LDR-kan resistorkiisa ayaa badan markii ay mugdiga tahay. markaas waxay noqon doontaa korontada dhex mari doonta ayaa aada u yaraan doonta oo ma awoodo inay shido transistorkan haddii uu dansan yahay macnaheedu waxay tahay korontada inta ay ka imaaneysaa dhinacan kaleeto waxay dhex mari doontaa R2gan resistor 2gan waxay shidi doontaa transistorkan. haddii transistorkan active gareysmana korontadii dhinacan ayay haddana ka imaaneysaa, LED-ga ayay dhex mareysaa, R4kan ayay dhex mareysaa, resistor 4kan ilaa groundka ayay soo aadeysaa. sidaas ayaa leerkan ku shidmi doonaa. maxaa dhici doona leerkan oo shidan haddii iftiin kaleeto la shido ama qoraxdii soo baxdo? waxaa dhici doona resistorkan ayaa yaraan doona, markaas korontada ayaa dhex mari doonta inta kan ayay shidi doontaa, active gareyn doontaa transistorkan labaad. markii transistorkan uu active gareysmo korontada inta ayay dhex mari doontaa, inta ayay qaybteeda ugu weyn aadi doontaa. kadib waxaa badan doona voltageka kan inta ka imaanaya iyo kan inta ka imaanaya, kan inta ka imaanaya ayaa badan doona. sidaas darteed transistorkan off ayuu noqonaya, maxaa yeelay korontada inta ka imaaneysa ayaa ka xoog badan tan inta ka imaaneysa. marka haddii tan inta ka imaaneysay baseka transistor 2ga korontadii soo gelaysa haddii ay ka yar tahay midii emitter-ka ka imaaneysa oo inta uga imaaneysay, transistorka ma shaqeyn doono. sidaas darteed ledkan off ayuu noqon doonaa. sidaas ayuu ku salaysan yahay basic ahaan. haddii aanad soo qaabka u shaqeyn doontana waa sidan hal daqiiqayn bus dhahaya
hadda inta waxaan ku haysanaa projectigii aan diyaarinay isagoo board noo diyaarsan. sidaa ujeediinba halkan waa labadii transistor, halkii layer LDR-ka aan sheegayna waa kan ah. iftiin markuu arko ma shaqeyn doono, sida haddaba iftiinkaan ku ifinayo ma shaqeynayo, leerka waa dansan yahay. resistoradii waa kuwana, jumper wire-ki waa tanaa, all everything is here. batterigiina waa kasaa. meeshaan waa qaanad, waxaan u geliyey qaanadaas in aan mugdi ahaan uga raadiyo. qaanada cuntooyinkaan ku xareysta waaye, sidaa ujeediin waa projectyaarka ku diyaariyaa ugu talagalay. waxaan sameyn doonaa mobilka ayaan ku duubi doonaa. waxaan isticmaalaya camera isticmaalaya waa mobilkayga, sidaas darteed iftiin ayuu ifinaya. iftiinka ayaan farta saari doonaa si ay mugdi u noqoto. daaqadanna xoogaa ayaan laabi doonaa sidaan oo kaleeto. markaas sidaa ujeediin hadda leerka waa shidmay, wadamay, waa shidmay, waa shidmay, wadamay, waa shidmay, wadamay. leerka haddii aan farta ku aadiyana si aan u helno xoogaa qeybka weyn, halkaa waa shidmay, iftiin ayuu dareemay, mugdi waa shidmay, iftiin, mugdi, iftiin, mugdi, mugdi, iftiin. sidaas ayuu u shaqeeyaa marka. dhammaantiin waa salaamantihiin. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan, adinkana aad ila sheer garan doontiin waxyaabihii aad sameyseen sidoo kaleeto ama aad jeceshiin in aan ka hadlo. thanks very much. aad ayay u mahadsantihiin dhammaantiin.